بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيرتو السلام عليكم هانتين الكستو جوجتان سو دواada asxaabay waa saaxiibkan Abdulkarim Mastercode leh waqtigii joogiga haadii waa yahay ninkii ahaay Muuse Salaad Weheliye Muuse Qandooriyay horta nin iska ciilan weeye waa nin iska forjeesan asoo meel iska taagan baa waxa la yiri waxa tahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa tahay ayaa la yiri Cali Guudlaawe ayaa dhegta ugu sheegay ninkii marka dhaga hadal free ayuu wuxuu ku dhaga hadlayaa shacabka degmada Maxaas asoo ku dhaga hadlay waxa ogtihiin in Maxaas markii uu tagay oo shirkii Maxaas ka dhici jiray uga lagu dooranayay nabadoonka Cali Madaxweyne iyo soo dhaweyntii ka dambeysay yani ugaas Yuusuf ninka intaas ayuu Maxaas fadhiyay waa cabursanay naqaska ayaa ku xirnay markii laga tagay Maxaas oo shirkii Maxaas dhamaaday oo meeshii Moqokori ugaaska u raacay oo tagay markaas horta hadal ugu horeysay waa toon nabadoon kala sheego wuxuu yiri Muuse shalay sidaan uma warameen waa xasuustaan ya nabadoonka guud Cali Madaxweyne ayaa wuxuu yiri oo Moqokori ka dhex yiri Muuse shalay sidaan uma hadleen maanta waa furfurtooy waxa weeye marka ninkii wuxuu ku dhaga hadlayaa marka hadda shirkii maanta Moqokori ku qabsadeen kooxdii tuugada ahayd isbaaristayaasha ay Kirshabeelle oo asaga kamid ahay meeshii ayuu marka hadal ka soo jeediyay marka wuxuu ku dhaga hadlayaa marka shacabka degmada Maxaas oo wuxuu leeyahay Moqokori waa meel noo dhagan nugul ninka hadduu ilmo badan dhalo kuwa yani u dhaga fudud iyo kuwa aan u dhaga fududeen waa u kala yaqaanaa wiil marka waxa weeye reer Maxaasad waana diideen waay reer Maxaasad waa idin diideen idin rabaan qashinkiina idin rabaan halis baari iyo kooxdiisa ma rabaan mana doonayaan Soomaad garan marka ama weligaaba reer Maxaasad ku dhaga hadal ama ha ku dhaga hadlin adeeg ku taala Muuse Qandooriyay ayaa tahay adiga Muuse Qandooriyay ayaa tahay waxba ha ku dhaga hadlin reer Maxaasad waa dad nasab waa dad yani wixii cuntama yaqaano waa dad yani sharafkooda ilaashanaya waa dad yani aan doonayn koox عدقاتياله iyo shabakad yani argagixis iyo baqti wax la socdo ma doonayaan reer Maxaasad waa ay diideen taas adiga marka waxa rabtaa in reer Maxaasad marka yani warkiina ay qaataan oo idin yeelaan reer Maxaasad waa diideen waa idin ka dhaga adeegan idin ma rabna idin yiraahdeen maxaa looga dabananaabaya Maxaas maxaa looga dabananaabaya Maxaas sida meelaha qaarkood ma noqonayso shacabka reer Maxaasad waa la yaqaanaa mana noqonayaan daba dhilifyaal mana noqonayaan dad yani heeriyonayaal mana noqonayaan dad kale u sacabtumayo u nacamleynayo reer Maxaasad noqon maayaan war kale ma haysaa Muusow hadaladiisii bal waa kana bal wax iga dhageysta kulana dardaarmo Moqokori waxay ka magac bedelan tahay degmooyinka gobolka Hiiraan ninka wiilasha badan leh wiilka u dhaga fudud iyo wiilka markii uu adeeg u tirsado dhaga culus waa kala yaqaan wiilka dhaga culus iyadoon laga eexanayn intaan oo dhan waxa ka keenay horta waa qaraar Muuse nin rag inuu qaraaraa waa ceeb reer Maxaasad hadday idin diideen ya kambanigiinaan hadday reer Maxaasad diideen in adeero gacali goob kasta ma ka sheege goob kasta ma ku dhaga hadlaysaa ya goob kasta reer Maxaasad ma ku dhaga hadlaysaa adeero dhaga hadalkaada adigu ku kooban yahay reer Maxaasad wallahi billahi talaahi inaysan kuleel iyo qabow midna isku ku hin hadalkaada dhuusa dameeraad ya wax ma dooriso ilaa Muuse Qandooriyay ayaa tahay Muuse Qandooriyay leeyahay gobolka Hiiraan gudoomiye u tahay ayaa tahay nin gobolka ku ciyaarayo oo raba dadka inuu saas kaga daba wareejiyo ya ayaa adeero gacali aabba leedahay dantaada waa aqoon weyday dantii dadkaada waa aqoon weyday deegaankaada la baabi'inayaad u jeeda 4 saac markaas daba socotaa wali markaas dana ku sii dhaga hadlaysaa reer Maxaasad waxaas adeero gacali dhagta kuma siiyaan reer Maxaasad dadka qaar ma aha hamoodin adeero gacali reer Maxaasad waa dad adeero gacali soo jeedo had iyo jeer mana qaataan nacamlayn sida meelaha qaar aad ku joogtaan oo lidinku nacamlaynayo wallahi ma qaataan reer Maxaasad nacamlaynta reer Maxaasad wax adag yaqaanaan
reer maxaasad haddii dhiil lala galayo wax cad ayay yaqaanaan ee wax mara hoosteeda lagu wada iyo cali guudlaawo tuug oo yacni la rabo si qarsoodi in lagu soo geliyey iyo waxaas ayaga yeeli maayaan ayaga waxay ogol yihiin dhiil in lala galo dhiilkaas haddii lala galayana waa dhiil ayaga faa'iido ugu jiro ay wax ku helayaan laakiin meelaan waxba laga helayn iyo dad been loo sheegayo qoraxda intii lasoo dhoobto ummad loo yacni iska sacabtamaysa maantoo dhan dareensaneen meesha laga jiro wax walbana aanan fahmayn iska daacad aha hesheen reer moqokori dad daacada waayo reer moqokoriga waa dad iska daacada nabigoodii ayaa u nool khiyaanada cali guudlaawe iyo baastirnimadiisa way baran la'yihiin reer moqokori way baran la'yihiin laakiin ayagaa ka dheefi doono ayaga ayaa arki doonaa waxay ka dheefaan mashaariicaa lidin badinaa 1 2 3 4 ilaa 100 hala keeno moqokori degmada waxaa weeye yacni degmooyin kalenta waxbay dheer tahay waa idin soo dhaweysay waa sax waa idin soo dhaweysay meelaha kale waa diideen jallaq waa soo garmarteen waa diideen reer maxaasadna waxay yidhahdeen nama soo gashaan marka inaad iska yacni iska dhagahadal aad iska dhagahadasho dantaa kugu qasbayso muusaqandooliyaayow danta ayaa kugu qasbayso haasaa maskiin baa tahay shaxda ma taqaanid dabaashana baran maysid xaqiiqatan dabaasha baran maysid mana baranaysaan kuwiinaa meesha fadhiyo yaa ee xawaadle dabaasha baran maysaan masaakiin baa tihiin rayid ah ayaa tihiin dabageeda idinkugu weyn wallahi usu dabaal baranayn iyo bilaahi tallaahi 20 sano ayuu siyaasadda ku jiraa waxna waa fahmi la'ya meesha laga qaniinayo wallahi ma garanayo xaqiiqatan dabageed meesha laga qaniino mana yaqaano marka waxaan leeyahay marka muusow kuwii kuu sacabtuma ammaan kuwaasaa ammaan kaa mudan reer maxaaseed ammaan kaa ma rabaan ama ku dhaga hadal ama ha ku dhaga hadlin kuwa laakiin idin sacabtumayo yaa shabakadiinaan kuwaas ammaanta waxay idinka dheefaanna waan arki doonaaye waxay idinka dheefaanna waan sugi doonaaye bal iska ammaanta reer moqokori hadda waxaa weeye shaqfashay idinku sitaan xilliga idin dhigaana arki doonaa xilliga idin dhigaan ayaa arki doonaa haddii intaa wax ku fahmi waayaanba weligood wax fahmi maayaanba weligood hirshabeelle iyo cali guudlaawe iyo tuugadiisa maba baran doonaan mana fahmi doonaan haddii intaa wax ku fahmi waayeen marka waxaan leeyahay waan kusoo gabagabaynayaa muusow kolley tabaa waxa weeye dhaga hadalkaada meesha ku socda waa dareemi karnaa dad waaweyn baan nahay caqli ilaahay siiyey xumaha iyo samaanta kala garta marka had ya jeer hadala nacnac ah yaa soo tuur laakiin waxba soo siyaadin maysid wax aad soo siyaadinaysa haba yaraatee muusaqandooliyaayow ma jirto marka waxaan leeyahay akhyaaray dhammaantiinba wada salaamaya muuqaalka share iyo like page-kana haddii aan ugu cusub tahay follow noo dheh dhaqan kaleetana channelka aan ku leenahay youtube-ka cabdixakiin mastico halkaas soo booqo subscribe-ka noo soo saar gambeelka soo furo si aad uga mid noqoto asxaabteenna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu